iyadoo ay socdaan diyaargarowga doorashada guddoonka iyo madaxweynaha maamulka Jubbaland, isla markaana olole xooggan ay ka socdaan magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka u ah maamulka Jubbaland, ayaa xilligan cadaadis waxaa la kulmaya mar kale madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo mar kale doonaya inuu isu soo sharaxo xilka madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland isla markaana uu ku guuleysto, iyadoona sidoo kale beesha caalamka war-saxaafadeed ay soo saareen ay kaga soo horjeesteen arrinkaasi, isla markaana Axmed Madoobe ka dalbaday in uu mar kale ku noqdo magaalada Muqdisho ee caasimadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si loo sii ambaqaado shirka madasha wada-tashiga qaran ee kal hore lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho, isla markaana gabagabeynta shirkaasi ka hor uu ka soo baxay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Beesha caalamka ayaa hogaamiyayaasha siyaasadda ee dalka ka dalbatay in si isla oggol ah lagu heshiiyo, isla markaana laga shaqeeyo danaha shacabka Soomaaliyeed, waxaana Axmed Madoobe la faray in uu joojiyo arrimaha doorashooyinka xilligan uu ka wado magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka u ah dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland. Beesha caalamka ayaa sheegtay inay garab taagan tahay geedi socodka ee dalkeena Soomaaliya, isla markaana garab buuxa ay u tahay shacabka Soomaaliyeed iyo dowladooda, waxaana arrinkan u imanaya xilli madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Madoobe la filayo in doorashadiisa ay qabsoonto 24 bisha November aynu ku guda jirno, iyadoona sidoo kale maalinta Biritaha ee fowda inagu soo haysa la filayo inay dhacdo doorashada guddoonka golaha wakiilada dowlad goboleedka Jubbaland, iyadoona xildhibaanada dowlad goboleedka Jubbaland ee 75 xubnood ah maamulka Jubbaland ay soo saareen, isla markaana ay u soo gudbiyeen odayaasha dhaqanka ee ku garabka ah Axmed Madoobe, waxaana la sheegayaa in magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka u ah maamulka Jubbaland xilligan ay ka socdaan siyaasado isdiidan, isla markaana uu ugu tun yahay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Siyaasiyiinta ka aragtida duwan Axmed Madoobe ee ku sugan Muqdisho iyo gobollada kale ee dalka ayaa sheegaya in marnaba aysan u dulqaadan doonin waxyaabaha madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe uu ka wado magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka u ah maamulka Jubbaland. Axmed Madoobe ayaa 4 sano ka hor sidan oo kale doorasho ugu qabsaday magaalada Kismaayo, taas oo isagu ku guuleystay. Siyaasiyiinta oo darasta arrimaha siyaasadda ee dalka ayaa sheegaya in Axmed Madoobe suurtagal ay tahay in uu ka dhag adeego baaqyada ay soo saareen beesha caalamka ee ku aadan in uu joojiyo arrimaha doorashooyinka, isla markaana uu ku laabto magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka si loo sii ambaqaado wada-hadalka hogaamiyayaasha madasha wada-tashiga qaran. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa si aad ah kaga soo horjeeda doorashada dadban ee Axmed Madoobe uu ku doonayo inuu ku qabsado magaalada Kismaayo, iyadoo dowladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Federaalka Soomaaliya hore u sheegtay in waxba kama jiraan ay noqon doonaan natiijo waliba ee ka soo baxda magaalada Kismaayo oo la filayo in dhowaan doorashada ay ka qabsoonto.